23 kamid ah maxaabiista ku xiran xabsiga dhexe ee Xamar ayaa ka qalin jabiyay dugsiga sare Rajo ee ku dhex yaala gudaha xabsiga dhexe ee Xamar 30 sano kadib burburkii dowladda dhexe. waxaana munaasabadaasi goobjoog ka ahaa wasiirka cadaaladda Soomaaliya ee generaalka uu sareeyay ciidamada asluubta Soomaaliya Generaal Mahad Cabdiraxmaan iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda Soomaaliya. maanta waxaan meeshaan ku daafuraynaa xaflad qalin jabin ah oo ay wax ku barteen ugana baxeen ilaa dugsiga dhexe ay uga baxeen ardadaas iskuulka dhigata waa la ogyahay iskuulku marba heer waaye tirada guud ee inta wax barata waa 98 waxa kombiyuutar barata 30 arday barata kombiyuutar waxbarashada asaasiga ee caadiga ah waxa dhigata 68 aan farxad gelisay halkaan waxay ka akhriyeen dhalinyaradan ma dhihi karo hadda ka bacdi maxabiis waxaan dhihi karnaa ardayda waxbaratay ee xabsiga joogta magacaasaan idin baxnaynaa haddii aan leeyahay waxbarashadiina waan kuga habalyeynayna waan ku barbar istaagaynaa waan ku kaalmaynaynaa ayadoo la dhiganayo sidii wiilkii uu halkaan ka akhriyay dugsiga Rajo uu furan yahay mid aniga isartaa kuma sameeyna gacan siinaan ku sameeyay gacan siinaan ku leeyahay annaga ninka fiican wax badan aan u hayna waa laga yaabaa qaar in ka mid ah inay fiicnaadeen oo maanta dalka wax badan u hayaan laakiin waa hebel ba dhahay anina ilaahay ii suurtageliyay dhowr jeer inaan u imaado ayagoo wax baranayo oo aan aad iyo aad ugu farxay hadda maanta inaan sii joogo halkan 4 sano kadib ayagoo qalin jabinaya sharaf weyn baa ii tahay shakhsi ahaan ardaydana waa u hambalyeynaya hambalyo sidoo kale waxaa warbaahinta iyagana la hadlay dhankooda maxaabiistii ka qalin jabisay dugsiga sare Rajo ee ku dhex yaala gudaha xabsiga dhexe ee Xamar. siga in badan aan ku jiraa laakiin iskoolka xilliga la furay 17 ilaa hadda aan dhigtaa kullay magaalada markaan joogay waxbarashadeeda say maanta taa isma lahan in markiisa bulshadeeda dadkii waxaan u qabtay insha Allah. ugu dambeyntii waa markii ugu horeysay 30 sano kadib dugsi waxbarasho loo sameeyo maxaabiista ku xiran xabsiga dhexe Xamar kuwaasi oo aad ugu mahadceliyay dowladda Soomaaliya fursadda ay u siisay inay wax ku bartaan gudaha xabsiga waxbarasho bilaash ah oo noloshooda dambe anfici doonta. dugsigaasi sare Rajo ayaa noqonaya maxadkii ugu horeeyay ee laga hirgeliyo gudaha xabsiga dhexe Xamar kadib burburkii dowladda dhexe ee Soomaaliya. Abdiraxmaan Atore, Nairobi.